waxaan safar gaaban ku imi magaalada London. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروعي لدقالك النوركا مشروعا وحكا ورميانين وشقين شري أوركاني wuxuu leeyahay waxaan safar gaaban ku imid magaalada London anigoo u socdo ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah 3 cisho markaan joog ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur kamid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya wuxuu igu bilaamiyay maqaaxi ku taala South Kensington oo la yiraahdo Kaylis Bakery waan imid anigoo walwaryar igu jira oo isweydiinaya wuxuu iga rabo markaan cabaar yar fadhiyay aan buniyo macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacada hoosta ka eegayo waxa si kadisa ii soo dul istaagay nin cad wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaaday hotel waan soo raacay gaarigii oo wuxuu keenay hotelka Riverbank Plaza oo ku yaala bartamaha London qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si la iga baahan yahay nafurid lahaad leh wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama waxaa noogu adkaatay in aan dibadda kala dagaalanno waliba wax walba waxa isbedeli doonaan marka la gaaro December 22keeda 2016 waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaas wax walba isku bedelayaan waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda wuxuu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegi jirin xubnaha daarka Moroccan aan nasiib u helay in la ii furo sirtan waxa la siin jiray inta darajadoodu uga hooseyso 22 cidda fashilisaana xukunkooda wuxuu ahaa dil wuxuu igu yiri hadda sihirkii aanu dhulkaas kula dagaalami jirnay uu naga istaagay 2016 waxa kor u kacay quwadda ruuxda aadamaha oo halis weyn ku haysa qorshaweynaha aan ku dhaxlayno awoodda Paul wuu dareemay in buuqu u furan yahay waxaanu ii sheegay markaan salaanka la sareynta in cabsida iga baabi'i doonto laakiin la iga baahan yahay nafurid lahaad wuxuu si toos ah igu sheegay in baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama wuxuu ii raaciyay in qariidada la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay 1884 wuxuu kale oo uu ii sheegay arin argagax igu riday Paul MC Milan wuxuu yiri shirkii waxa fadhiyay kii samada ka soo dhacay markuu arkay in aanan fahmin ayuu iiga macneeyay idinka shaytaan ayaad u taqaanaan wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin labada nuur ee uu u baahan yahay in la dagaalamo si qorshaha iyagu uu fulo